magacaygu waa Juliet waxaana jira 9 sano sheekadani waxay ku dhacday xilli aan aniga iyo waalidiinteenu soo korinay guri ay hooyadii iyo aabihii ku lahaayeen beerta dhexdeeda gurigaas waxa uu ahaa mid aan aad u jeclahay waxuuna lahaa geeda aad u tiro badan sidoo kale waxa uu lahaa webi kaasoo ka dhigi jiray meesha mid aad u qurux badan waan jeclaa wax walba oo gurigaas dhex yaalay ama uu ku dhex saabsanaa balse waxaa jira shay oo aan necbahay waxaan ahayd armaajada aan dharkayga ku guranayay waqtiyada kamid ayaa jirtay oo armaajadaas igala soo martay dhacdo aad u naxdin badan waxay ahayd xilligaas haween sabti ah oo aan rajaynayo inay bari iska noqon doonto maalin fasax ah waxaan iska fiirinayay armaajada dhankeeda waxaan arkay in armaajada albaabkeeda uu dhaqaaqayo balse hal mar waxaa albaabka gacmaha soo geliyay qof diyan arkay waaba nin qaba wajiyada dadka lagu cabsiyo waan nahay wuxuu ahaa mid sameynayo ficilo aad u layaab leh wuxuu dhahay aamus kadibna waxa uu bilaabay inuu geesaha fiirfiiriyo aamus arkin oo ay soo fiiriyay kadibna waa macsalaamiyey waxaana dib u xiray armaajadii anigii naxdin waan qayliyey waxaana dhahay hooyo aabo markiiba waxaa soo galay waalidiinteeda waxaana ugu dhaheen maxaa kugu dhahay gabadheedii ma aanan hadli karin waxaana farta ugu fiiqay armaajada ay aadeen wayna fiirisay hooyadii waxaana ku dhahay hooyo bahal ayaa ku jiro hooyadii way igu qosashay waxayna igu tiri hooyo waxaa u malaynaya aad u cabsi badan ina aragtay armaajadaadii oo iska caadiya waxna kuma dhex jiraan yaa caadi iska dhig ee ii seexo waxaa u malaynaya aad u furcun ayaad aragtay habeenkii sidii ayaan ku seexday markii isbuuc ka soo wareegatay anuu sidii kaleeto dhanka midig u jiifa ayaan waxaan mar kale arkay armaajadii oo dhaqaaqayso sidoo kalena gacmo la soo geliyey waan fiiriyey waan jaray oo waan cabsaday waxaana isku dadiyey bustihii anigoo isweydiinayay su'aalo tiro badan isla sidii oo kale waxaa ka soo dhex baxay isla ninkii wuxuuna sameeyey isla sidii uu habeenka hore sameeyey waxuu igu yidhi aamus geesaa ayuu fiiriyey waa u macsalaamiyey kadib waa iska laabtay anigu waan naxsanaa aad ayuu nacabsanayay waxba ma aanan samaynin ma aanan qaylanin anigoo isleh haddii aad qayliso amay hooyada kula yaabtaa amay kugu qaylisa ama ay kugu dhacdaa naag fuliyad ayaa tahay waxaana iska dhigay gabar fiican oo geesiyad ah warshib ayaan dhahay oo maba aanan hadlin habeenkaas waxaan isweydiinayay ninkan waxuu ka dhex qabanayo armaajadeeda habeenada ayaa socdeen habeen walbana wuxuu imaan jiray sidii ayuu samayn jiray isagoo mar walba u baxaynin macsalaamayn jiray aniga habeen walba indhaha ayaan ka fadhiisan jiray waan ka cabsan jiray ilaa ugu dambeyntii aan la qabsaday bal aan markuu macsalaamay dhahay aan sii macsalaamayn jirayba balse habeenada ka mid ah ee ahayd habeenkii ugu naxdinta badnayd uguna cabsida badnayd habeenkaas waxay ahayd habeen uu roob da'aayo isla sidii caadada ahayd waxaan u jiifay dhanka midig sidii ayuu sameeyey waaba soo galay waxaana bilaabay inuu igu dhaho aamus balse maanta waa uu ka duwan yahay waxa uuna sameynaya dhaqamo ka duwan kuwii horeeto waxa uu ahaa mid la soo baxay weji aad moodid inuu yara xanaaqsan yahay ama uu yara murugsan yahay waxa uu bilaabay inuu dhiisa kala qaado sida qof arkay oo kaleeto waxa uu soo furay albaabkii waxa uu urd ku soo galay qolkii wuxuu ahaa mid leh ilka laga cabsanayo indho aad u cabsi badan ilkiisuna waxay ahaayeen kuwa afaysan waxaa kasii daran cidiyihiisu waxa ay ahaayeen kuwa aad u dhadheer wuxuuna ku soo booday sariirteeda korkeeda waxaana bilaabay inuu dhaho carar aniga waan la yaabanaa cabsi daraaddeed aniga waanba istaagay ismana dhaqaajinin oo bartidaan iska fadhiyey waxa uu ku boodayey sariirta dhankeeda hoose oo sariirta hoosteeda ayuu galay waxuuna bilaabay inuu dhanka hoose sariirta wax kala raadiyo ilaa uu ka soo qabtay mas aad u weyn maskii ayuu soo qabtay wuxuuna bilaabay inuu dhulku ku garaaco weliba si xoog ah ilaa 4 jeer ayuu dhulku ku garaacay ilaa uu maskii ka dhintay waa uu dilay maskii oo sidii ayuu masku ka dhintay aniga waan yaabanahay isaga uu soo fiiri wuxuuna dhahay ma fiican tahayna wuu yana yareenahay wuxuuna dhahay aniga waa maska naxsanay waxba ma ogi waan jareenayaa cabsi daraaddeed wuxuuna yidhi iga raali noqo ma rabin inaan soo galo mana rabin inaan soo xadgudbo intaas hooyada imaanina waan sii baxayaa marka iga raali noqo waxaan arkay maskaan oo meesha ku jiro sidaas ayaan u soo galo qolka marka iga raali noqo wax dhiba ma wato aniga maanan awoodin inaan hadlo cabsi yaa maxaa ka hadlaysaa ayaan ku hayay shib babal hadlin waxuu daaray nalkii wuxuuna i tusay wejigiisa oo caadi ah yani wejigiisa oo bilaa mugdi ah wuxuuna gacanta ku watay sigaar wuxuuna dhahay sigaarka hadda ma cabi rabin waa iska wataa oo keliya 20 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inaan cabo oo gacanta oo keliya ayaan hadda iskaga wataa markaa ka walwalin ma daaraye waxaa bilaabay inuu afka iska gashta sigaarkii oo qalalan
aniga jarayn naxdin iyo dhidida iga soo haray wuxuuna igu yiri ma cabsatayna haa ayaan ku dhahay in yaraalno quban ka tagayaa mar dambe ma rajaynaa inaan arki doono hayay horta yaa taa adiga ayaan dhahay markaas wuxuu yiri aniga wingi baa la dhahaa wingis baa la dhahaa meelahan ayaan ku noolahay ka barasho wanaagsan sidii ayuuna habeenkii ku tagay muddo kadib maalmaha ka mid ah mid ka mid ah dadka guryaha la ama guryaha aan lahayn ayaa isku dayay inuu qabto balse xamar anigu u jeedo ninkii waxa istaagay wadnaha waan fiiriyay bas anigu jeeda ay ninkii nafta ka baxday waxaana markii soo kaxiyay booliiska anigu weli booliiskii aan soo raacay waxaan meesha ku arkay ninkii oo isla sidii sameynayo aamus oo keliya oo nidhool cadeeyay waxayna ahayd markii ugu dambeysay waan arkayo aniguna aad uga naxay aadna uga cabsaday ninkaas fadlan haddii aadan weli subscribe inoo saarin si aan u gaarno hadafkeena oo ah 25,000 muddo kooban gudaheed midda kale dadka subscribe inoo saaray aad ayay u yaryihiin oo waxaa ka tira badan inta qof ay aanan inoo saarin videosheena daawatay marka isku day inaad subscribe inoo saarto sidoo kale aad videoga qurxiso adigoo taabanaya like aad ayaad mahadsantahay waxaa xaqiiq ah inay jiraan dad badan oo ka cabsada kaloon maaskiga ama maaskiyada wejiga lagu xirto balse aniga maanan ahayn mid kuwaas oo kaleeta oo ka cabsada kaloon maaskigaas ilaa laga gaaro habeenada ka mid ah habeenkaas aniga iyo xaaskayga iyo cunugayga waxaan ka soo wada casheynay makhaayad seeneed ah waana soo baxnay waxaana soo aadnay gurigeena cunugayga waxa uu ku soo dhex seexday gaariga dhexdiisa markii aan guriga imaanayna waan soo qaaday waxaana keenay sariirtiisa markii aan sariirtiisa keenay oo damcay inaan seexdo ayaan waxaan maqalnay albaabka la garaacayo xaaskayga ayaa igu tiri yuhu yahay qofka xilligan nagu soo garaacayo waxaana ku dhahay aniga ayaa soo hubinay soo nafiirinayay isug waan soo degtay qaybtaas ayaan soo degtay waxaana maqlay qof dhahayo icaawiya waxayna ahayd qof haweeney waxayna dhahaysay ninkayga ayaa idilayo ee albaabkayga fur waxaana weydiiyey booliiska ma wacday oo mala hadashay waxaana igu tiri kama gaari ee iga fur albaabka marka hore aan guriga soo galo waxaana ku dhahay sug jeebkayga ayaa gacanta geliyay si aan furaha u soo bixiyo horiya markaan soo bixiyo albaabka aan furi rabo ayaan fikir waxaana dhahay qofkan maxaa ka qaldan qof cabsanaya ma u eeko waxaana ku dhahay maxaa dhacayna ninka maxaa isku haysateen waxayna igu tiri ninka waa u jiifay markuu soo kacayna waxa uu igu bilaabay garaacitaan iyo inuu soo bursado anigii waa shakiyay waxaana isweydiiyay hadduu ninkan bursanayo xilligan marro ayuu qaban lahaa wax badan ay taagan tahay qofkan markaasaan dareemay qofkan inuusan ahayn qof la bursanayo waxaana ku dhahay ciyaartii iga daa ay orod iga tagay haddii kale booliiska ayaan kuugu wacayaa taleefankayga ayaan la soo baxay si aan booliiska u waco wax yar un kadib isla markiiba waxaan maqlay cod kaleeto oo ka soo yeeraya isla albaabka waxayna dhehaysaa naagtaas kaleeto albaabkayga fur waxaan ahay qof xawlaad u baahan waxaana ku dhahay waa khaldan tahay iga tag hadda ayaan booliiska wacayaa hana igu ciyaarin waxaanu dhahday bannaanka waa ku qaboobay iga fur albaabka horta gudahaan ku wada hadlayna albaabkayga fur anigii waan yaabay aad ayaan u seexrooday waxaan dhahay ogow inaan kula kaftamayna booliiskana hadda ayaan wacayaa hadda baan kuu sheegay ee bax idhaaf aan kaa seexanee qofka waa isku bedelay waxuuna bilaabay inuu si xanaaqal u hadlo weliba uu qaylinayo dhahayo fur albaabka waryaa fur albaabka anigii waan nacay gadaal ayaan u booday markiina waa carar xaaskayga ayaan ku dhahay dhaqsa booliiska wac booliiska waxaana dareemay qofkan inuu yahay qof anakana soo weeraray mindi ayaana la soo booy isla markii waxaana soo aaday dhanka daaqadda si aan uga fiiriyo isaga markaas taas daaqadii u soo istaagay wax yar waxaan gees ku leexay baasha waxaanba arkay nin wejiga maask ku qabo weliba maask aad u cabsi leh naxdin dareedeeda gadaal ayaan u dhacay mindidiina waa iga dhacday waa uu ii soo dhowaaday ninkii ama uu bahalkii wuxuuna soo qaaday mindida kor ayuuna u qaaday xaaskayga ayaana meesha soo gashay iyadoo aad u nacday waxaasoo dhanna waxaa ka sii darnaa markii aan arkay 5 kaleeto oo isla kaasoo kaleeto amaba wejigaas oo kala wataan oo isla qolkii ku dhex jiraan
aad ayaan u cabsaday, cabsideedana aad ayay u sii ziyaaday. waxayna ahaayeen kuwo wato maaskiyo kala duwan, balse maaskigaas dhammaantood waxa uu ahaa mid aad u cabsi badan. xaaskayga ayaana timid, waxaan dhihi maxaa meesha ka dhacayo? waxaana ku dhahay orod adiga iska carar, waxaadna wacdaa booliiska si degdeg ku wac, orod iska bax. waxaana igu tiri ii sheeg maxaa dhacayo? waxaana ku dhahay orod adiga iska bax, walaa baahan inaad ogaatid. albaabkii ayaana sidii loo garaacayay, waxaana aaday mid ka mida iyaga dhankii albaabka. albaabkii ayuuna ka soo furay qofkii taagnaa. wuxuuna qofkaas ahaa midkii iyaga u talinayay ama midkii iyaga ugu weynaa. wuxuuna igu yidhi hawra, maxaa isla adkeynaysa? miyaadan u cabsanaynin faamiligaaga, carruurtaada iyo xaaskaaga? wuxuuna la soo baxay biskoolad, madaxa ayuuna iga saaray. wuxuuna u muuqday mid aanan kaftamaynin amaba aanan wax xiisaa u haynin noloshayda. anigii naxdinta ayaa ugu tira badatay, waxaana dareemayay in fartiisa ay u dhoweyd inuu taabto, inay xabad igu soo rido. waxaana dareemay inay tahay markii ugu dambaysay aan noolaan lahayn. dhacayaana isku qabtay. wax yar kadib waxaan dareemay biyo wejigayga taataabanaya amaba yacni biyo in lagu shubayo oo kaleeto. markaan indhaha kala qaadayna waxaanba arkay inay biskooladu tahay tii carruurta oo ay biyo ka da'ayaan. waxayna bilaabeen dhammaantood inay aniga igu qosqoslaan. anigana aad ayaan u cabsanay. waxaana dhahay maxaad san igu samaynaysaan? wuxuuna igu yidhi sabab la'aan. wuxuuna bilaabay inuu ku ciyaaro waxyaabo yaryar ah oo isagu watay. waxaana dhahay booliiska ayaa imaanaya, haddaba ogaaw. wuxuuna yidhi xaaskaaga 3 daqiiqo oo keliya ka hor ayay wacday, waxayna imaanayaan booliiska 12 daqiiqo kadib. waxaan haysanaa fursad aad u weyn oo aan idinku dili karno adiga iyo faamiligaaga. maxay tahay sababteeda aniga nagu daysid? anaka waxaan ahnay ayuu dhahay tiim isku xiran, rabnana inaan noqonno kuwo aad u adag lagana cabsado, sidoo kalena magacooda uu caan noqdo, weliba iyagoona la aqoonin. sidoo kaleeto qoysaska idinka oo kaleeta ah oo masaakiinta ah waxaan u dilinaa maalaa yacni si iska baashaal ah oo iskaykiin baashaaleyno iyo raaxo yaraan idinku dareemayno dilkiina amaba qayladeyna. dhisid ayaa iga soo daatay. waxaana ku dhahay waad waalan tahay adinka, waadna waalantiin dhammaantiin. wuxuuna dhahay midaas waan ognahay, waana ka warqabnaa. mid ka mida ayuuna wuxuu ku yidhi buufintii soo ma haysiin? wuxuuna igu dhahay ma ogtahay haddii aad buufintaas afkaaga geliyo oo aad ku dhex neefsato oo ay buufinta aariyeysmato inaan dili doono adiga iyo dhammaan wixii guriga joogo. haddaba iska taxadar oo buufintaas haddaba isku neefsanin. haddii ay aariyeysmato ogow waad dhimanaysaan adiga iyo qoyskaaga oo idil. wax yar kadib waxaa soo yeeray codkii booliiska amaba gaariyaashii booliiska. dhammaantoodna waxay bilaabeen maxaa khaldan? 9 daqiiqo ayaa binoo dhanneede, maxaa khaldan? dhaqso ayay soo imaadeen. markii waxay bilaabeen nabada aan baxno iyo inay isku yeeraan. waxayna ka baxeen daaqadda dhanka jikada, gadaal ayayna saas ooga baxeen. wax yar kadibna waxaa meeshii soo gaaray gaariyaashii booliiska. markii ay saas u yimaadeen waxa ay bilaabeen inay ka raadiyaan agagaarka gurigeenna iyo dhammaan gees walba oo gurigeena laga soo geli karo, balse waxba ma soo faa'iidin oo lama qabanin kuwii. maalinkaas kadib waan kasoo guurnay gurigii. xilli kastoo waan arkana wax ku saabsan clown maskiga ama maskiyada wejiga lagu xirto, waxaan ka qabay cabsi aad u daran. waxaan rajaynayaa inaadan ku kalsoonaan qof wejigaas wato. magacaygu waa David. sheekadani waxay igu dhacday xilli aan dhiganayay jaamacadda, gaar ahaan xilli aan dhameeyey semisterka 2 ee jaamacadda. waxaan go'aansaday xilligaas inaan waalidiinteeda u aado dalxiis ama ayaga waqtiga la soo qaato, balse xilligaas waxaan la kulmay iyaga oo bixi rabaan. waxayna dhaheen isbuuc kadib waan soo laabanaynaa howlo shaqo jira awgood. hay ayaan ku dhahay, sidii ayayna ku baxeen labadoodiiba. gurigana waxaa ku soo haray aniga keligay. markii habeenkii la gaaray ayaan go'aansaday inaan daawado TV-ga. markaan daawanayay TV-ga ayaa waxaa soo galay news markaas soo dhacay oo cusba oona sheegayay
in la helay amaba la ogaaday inuu jiro serial killer amaba nin dilaa ah kaasoo xili dhaweeto dilay dad aad u tiro badan aanan weli gacanta lagu dhigin dadkana looga digayo. waxaana meesha la soo saaray sawirkiisa. aad ayaan nooga nacay maadaama uu ahaa nin aad looga cabsanayo wejigiisa. wuxuu ahaa mid qaab ahaan u eg maafiyo, wejigiisana aad ka dareemayso bilaa naxariis iyo lacnad. wuxuuba u ekaa mararka qaar isdhahaa masiixu dajaal. ilkihiisa waxaad moodaa kuul lagu sharxay waxyaaba qaab daran. jirkiisana wuxuu ahaa mid jeexjeexan aad ka dareemayso ninkan inuu yahay nin dilaa ah. aad ayaan u nacay. waxaana igu soo dhacay waxyaabo badan oo niyaddeeda soo galay oo uu aabbey iiga sheekayn jiray xilliyo horeeto. waxaana ku fikiray qofkaas inuu haysto mindi kaasoo dadka dhan uu ku dilaayo. markiiba waan soo kacay waxaana bilaabay inaan xiro dhammaan daaqadooyinka iyo albaabada uu gurigeena lahaa. waxaana jiray ay yar oo aniga lahaa oo lagu magacaabi jiray Bruno. waxaan ooga soo tegay qolka fadhiga waxaana soo galay qolkayga si aan u yara akhristo buug oo aan isku yara mashquuliyo oo aan isku dhaafiyo murugada aan yara dareemayo. waxaan iska dhadhacsiyay in waxaas macquul ahayn inuu ninkaas aniga ii imaado. meeshii ayaan ku gamcay oo hurdo aad u daran ayaa ii heysay. waana iska seexday ilaa aan ku soo kacay xilli saqdhaca biyaha oo furan weliba qaybta jikada. aad ayaan u yaabay. saacaddu waxay ahayd 11:15. waxaan dhahay xilligan maxaa shanqarta yeerayso. waxaana dareemay eygayga inuu bannaanka qaylinayo. waan yaabay. muxuu eyga bannaanka qabanaya gudaha ayuuba joogeen. jaraanjarta ayaan ka soo degtay anigoo aad u hurdaysan oo indhaha isku haysta weliba tartiib u socdo si aanan u dhicin maadaama aan aad u hurdaysanaa. jaraanjartii ayaan ka soo degtay balse intaas waxyaabo badan ayaan maqlayay iyo buuqa oo aad u sii tirabato iyo eygayga oo aad moodo in la ciijinayo ama lagu dhegan yahay. waxaan dhahay Bruno. waan u wacay eygayga misena wax ii jawaabo amaba shanqartiisii ayaan bogwaayay oo hal mar ayuu shib dhahay. anigii naxdin ayaan yara dareemay. cabsi ayaan ay gashay maadaama waxyaabo badan ay horey ugu programsanayeen. markiiba waxaa tagtay korontada taasoo aniga naga dhigtay inaan aad u sii cabsado. nalka ayaan isku dayay inaan shido misena maba shid maayo. taleefankayga ayaan la soo baxay tooshka ayaan si tartiiba u shitay. waxaana dhahay yaa jooga meeshaan yuu yahay qofkayga cabsiina oo igu ciyaarayo misena qofna ilamaba uusan hadlayn. waxaan dareemay cabsi ka daran midii horeeto oo aad ayaan buu sii cabsaday. tooshka ayaan afarta gees ku iftiimiyaa. waxaana isdhahayaa waayo qofkan. 100 su'aalood ay maskaxdaydu isweydiinaysaa. waxaan fiiriyay meesha eygayga u jiifay misena ma u jiifaba. albaabka ayaan soo fiiriyey misena albaabka waa la soo jebiyey oo albaabka waa uu jaban yahay. waxaana arkay nalalka ciidaha kaleeto inay u shidan yihiin. taas daraaddeedna aan dareemay in guriga uu qof igula jiro. gudaha ayaan soo galay. geesinimo ayaana iska raadiyey. waxaana imaaday meeshii laga kontaroolayay nalalka amaba laga shidaayay oo saacadda ku xirnayd. misena waxaa arkay saacadda oo off ah misena la xiray ama xiran badda. markiiba waa shiday. waxaan isweydiiyey wuu noqon karaa qofkaas. anigana intaas maskaxdayda waxaa ku jira ninkii serial killerka ahaa. geeska ayaan soo fiiriyey misena waxaaba taagan nin haysta muddo dheer. waana ninkii serial killerka oo newska laga sheegayay. wuxuuna dhahay hey wariyaa cidniyaa kula joogto mise keliga ayaa tahay. maanta adiga ayay ku maraysaa isdiyaari markaagii waaye. anigii naxdin wadnaha ayaa iga soo dhici gaaray. wuxuuna igu yidhi haye markaaga waayahe. wuuna igu soo cararay. aniga ma aanan sugin. albaabkii ayaan ku soo xiray. waana fakaday waana ka degtay qaybtii. albaabka waan ku soo xiray mana uusan awoodin inuu albaabka iska furo maadaama albaabka bannaanka laga xidhi jiray. anigii dhulka ayaa ku dhacay naxdin daraaddeed. taleefankaygana dhulka ayuu igaga dhacay. waan soo istaagay isla markiiba. meesha waxay ahayd mid mugdi ah waxba la arkin. nalkii ayaan gacanta kula raadiyey maadaama aan dayta damiyey. markiiba waan shatay misena waxaanba arkay eygaygii oo la dilay. meeshan waxaa daadsanaa dhiig aad u tiro badan.
aad ayaan u naxaan dhahay eygeygii Bruno maxaa ku dhacay aad ayaan u qayliyey misna ninkii albaabka aad ayuu soo garaacayaa oo wax uu rabaa inuu soo galo aniga waxaan leeyahay maxaa iga rabtaa maxaa iga damacsan tahay meel aan ka baxmaysa jirin aan ka ahayn daaqadii yariist ee daaqadii aan ka soo baxay waana soo fakaday waxaana soo aaday gurigaasi dariskeen ahaa waxaana ku dhahay miyaa caawin kartaan ninka serial killerka ahaa ayaa gudaha ku jiro yaa inta dheheen ayuu gudaha ninka ku laabtay ninkana waxaa u joogay 3 qof amaba asaga iyo 2 qof oo kaleeto qoryaalna ay guriga ayuu u yaalay wayna soo qaateen gurigii ayana soo galeen kaliya waxaan ku aragnay raad iyo dhiiggii eygeygii Bruno markiiba waxaa imaaday waalidkayga iyo booliiska oo arrintii xaliyey gurigiina waan iskaga soo guurnay ninkiina sidii ayaa lagu waayay anigana waxaan ahaa mid mar walba ka fikira ninkaas oo maba aanan ilaawin ibidkay markaas ayayna ahayd xilligii ugu dambeysay ninkaas oo dib dambe maba aanan arag fadlan haddii aadan weli subscribe inoo saarin si aan u gaarno hadafkeena oo ah 25,000 muddo kooban gudaheed midda kale dadka subscribe inoo saaray aad ayay u yaryihiin oo waxaa ka tira badan inta qof ay aanan inoo saarin videosheena daabatay marka isku day inaad subscribe inoo saarto sidoo kale hadda videoga qurxiso adigoo taabanaya like aad ayaad u mahadsantahay